kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo saaka aroortii hore ka bilowday taliska labaad ee ugu weyn deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedka Hirshabeelle ama Galmudug goobihii laga hagay haddaan ugu cusubtaan ugu soo bir muuqaalkan si shargaray aad iyo aad u mahadsantahay sida qaarkiinba ka aragteen baraha bulshada kooxda al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Wargaadhi oo ku yaala xeebta degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe ama degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe deegaankaas waxa ku yilay saldhigga labaad ee ugu weyn deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug oo howlgallada laga hagay waxaana la wariyay in saaka kooxdu ay dagaal culus ku qaaday ilaa waqtigaana dagaal ayaa ka socda gacan ku hayda deegaanka cid gacanta ku haysta laba xaqiijin karo hub culus ayaa la isku adeegsanaya dhawaaqa qaraxya la maqlay xabadii bilaabatay saaka 12 saac ayaa ilaa waqtigan oo 7 iyo wax la jira ahna socoto Wargaadhi waa saldhig military garoon diyaaradeed oo ciidanka xoog u leeyna laga furay sidoo kale waxaa jooga ciidamo xoog badan oo dawladda ka tirsan waliba kuwa ugu tababarka wanaagsanaa ee danab iyo kuwa gorgor sidoo kale waxaa ku sugnaa ciidamo kale oo kuwa deegaanka ah maalmihii la soo dhaafayna xiisada ka taagneed kooxda al-shabaab ayaana ku soo dhawaanaysa deegaanka laba maalmood ka hor warbixin aan baahinay ayaan ku sheegnay in al-shabaab oo deegaano kala duwan ka yimid lagu aroorinayo deegaano Cali Guduud iyo Wargaadhi u dhaxeeya oo ay tawfiiq ka mid tahay iyo goobo kale oo dhulkeen ah halkaasina qaarna lagu keenay qaarna gaadiid lagu keenay u diyaar garoowayaan inay Wargaadhi weeraraan dawladda Soomaaliya ma dhicin inay ka hortagto iyo in lagu duulo ayaga laakiin saaka kooxda soo duushay saldhigaas waxaana ka holcaya dagaalkii ugu cuslaa lamana oga sida ay xaaladdu noqon doonto warar kala duwan soo baxaya oo marna leeyahay dawladda ku sugan marna la leeyahay al-shabaab la wareegay laakiin xaqiiqada marka dagaalku uu istaago iyo lagu kala baxo ayaan ogaan doonaa cid gacanta ku hayso maadaama hadda wali dagaalkii socdo aan cidna la oran karin deegaankii maamulaysa Wargaadhi hore u sheegnay waa talis military oo aad u xoogan oo staadka ciidanka oo yeelay sidoo kalena garoon diyaaradeed oo ku yeelay Wargaadhi hadii la qabsado waxa go'doon gali doona ciidanka dawladda ee ku sugan Noordugle sidoo kale waxa go'doon gali doona ciidanka dawladda ee ku sugan Cadcadde iyo Cadalle halka lagu magacaabo oo runugood kamida waxa sidoo kale go'doon gali doona ciidanka dawladda ee ku sugan Masagawa iyo Ceeldheer waxa u furnaan doona oo kaliya in u gudbaan dhinaca iyo Xaradheere gudahan xaaladaas ka cusub Shabeellada Dhexe iyo howlgalladii wixii warar ku soo kordha waxa idinku soo gudbi doonaa wararkeena barnaamijyada dambe Allah uu dilo idmo wali ma jiro xoolo dhinacyada dawladda ka soo baxay iyo militariga Soomaaliya laakiin waan eegi doonaa hadba wixii soo kordha iyo sidii xaaladdu tahay aad u maasanta aragtida qaybta safaalada hore muuqaalkan aan soo shargaray haddii aad nagu cusubtaan nagu